السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada mid ka mid ah barnaamijyada aan maanta idinku talagalnay. maanta waa barnaamijkeeni koobaad. Ramadaan Mubaarak. Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar hadda oo aan barnaamijka duubayo waxay ku dhawaaqeen barito inay tahay Ramadaan. haddaba kullu caam wa antum bikhayr. kuwii ka faa'iideysta Ramadaanka Ilaahay ha inaga dhigo. barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa dalalka ilaa hadda soomay kuwa aan soomin waxa lagu saleeyay laakiin hadda warku waa cusub yahay. barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa Ramadaanka ku saabsan haddii alla idmo oo goordhow isagana aan soo diyaarin doono. barnaamijyada aan idin hayo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah wadahadaladii Geneva ku dhex maray Iiraan iyo Mareykan maxaa ka soo baxay. aayatullaahiga oo u hanjabay Trump markiisa. Shiinaha iyo Ruushka oo shixnado huba mar kale geeyay Iiraan. Mareykanka oo baqdin ay soo food saartay markab kale oo saddexaad oo diyaaradaha xambaara wuxuu u dirayaa dhankaas iyo bariga dhexe. xaaladdu way adag tahay. Iiraan oo doonaysa inay kaw siiso gacan biyoodka Hormuz. saacado kooban ayaan hadda xiraynaa cid soo mari kartana mare. haddaba qodobada ayaynu barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa. waxaan naga xasuusa maanta barnaamijyadu way naga daaheen. Ramadaana loo diyaar garoobay. insha Allah haddii alla idmo barnaamij kale iyo wixii aan ka gaarno ayaanu soo gudbin doonaa. mar kale waxaan idin leeyahay ikhwaanay asxaabay Ramadaan Mubaarak. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kastoo aad joogtaan. Ramadaan Mubaarak. Ramadaan caawa ayuu bilowday. barito Arbaca dowladaha Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka waxay ku dhawaaqeen inay barito tahay maalinka koobaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan. caawa waxaa bilaaban doona taraawiixdii masjidka Xaramka iyo Masjidu Nabawi. haddaba tafaasiisha sheekooyinkan Ramadaanka ku saabsan iyo inaad si weyn u ogaato dalalka soomay kuwa aan soomin wixii oo dhan barnaamij gaar ah ka sameyn doonaa. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa wadahadaladii loo ballansanaa inay dhex maraan Iiraan iyo Mareykanka maxaa ka soo kordhay. casirkii maanta ayaa waxaa la sheegay inay u soo gudbeen wadahadalada oo ay dhammaadeen. waxaa laga soo kala tegay safaaradda Cumaan oo wadahadaladu ay ka dhacayeen. safaaradda Cumaan ayaa wafdiga Mareykanka iyo kan Iiraan ba iskugu tageen. wadahadalada meeshaasaa si fiican loogu qaatay. kadib wafdigii Iiraan way soo baxeen. wafdigii Iiraan waxay soo aadeen safaaradda Iiraan ee magaalada Geneva. markii ay halkaa yimaadeen wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa isagu halkaa ka hadlay oo markaa warbaahinta la hadlay isagoo ku sugan xarunta safaaradda Iiraan ee magaalada Geneva. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray haddaan idin la wadaago. Al Jazeera waxay qortay inay soo gabagaboobeen oo ay dhammaadeen wadahadaladii Geneva ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Caraaqji iyo wafdiga Mareykanka. dhanka kale wafdiga Mareykanka ee wasiirka Iiraan ee Caraaqji waxa uu sheegay in isfaham guud uu meesha ka dhacay oo waxyaabaha qaar la isku fahmay sida uu yiri. haddaba wadahadaladu waxay soo gabagaboobeen casirka maanta oo Talaado ah magaalada Geneva waxaana ay ahayd wareegii labaad ee wadahadalo ka soo bilowday gal hore magaalada Masqad ee dalka Cumaan. haddaba wariyaha telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in labada wafdi Iiraan iyo Mareykankaba ay ka baxeen safaaradda Cumaan oo ay ku wada hadlayeen kadib markii wadahadaladu ay soo dhammaadeen. warbixintii ugu horeysay wadahadaladan waxaa soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Cabbaas Caraaqji. Caraaqji waxa uu sheegay inay yeesheen wadahadalo wax ku ool ah oo wax badan la iskula meel dhigay. waxaana uu sheegay in ay wadahadaladaasu ahaayeen kuwo ka xoog badan kuwii hore. haddaba war-saxaafadeedka safaaradda Iiraan uu ku qabtay magaalada Geneva wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen mabda ahaan wadajir in markan arrinka wax looga qabto oo xiisada wadahadal lagu dhameeyo. marka wafdiga Mareykanka ilaa hadda iyagu wax tafaasiila kama bixin laakiin way hadli doonaan barnaamijyada dambe ku soo qaadan doonaa. marka sheekadu marka waxay u muuqataa waxaa leeyahay
wax hadda weyn oo la gaaray male laakiin wada hadallo kale in loo ballamay haddiiba uu Trump ogolaanayo iyo haddii kale meeshan marka awala waxaa la sii sheegay in nimankanu waxa ay isku hayaan wax macquula inaysan ahayn in maalmo iyo waqti kooban looga heshiiyo marka arikaasu isaguna halkaasuu taagan yahay wada hadalladiina hadda Iran waxay yiraahdeen xogaa waa isfahamaa jira laakiin marnaba lagama wada hadli karo arinta ku saabsan sawaariiqda iyo arrimahan laakiin arrimaha nuclearka iyo waxa kan waa laga hadli karaa haddaba sheekadu markay halkaa marka marayso ayatullaahiga Iran ninka la yiraahdo Ali Khamenei hogaamiyaha kacaanka islaamiga ee dalkaas isla markaana ah taliyaha guud ee ciidamada Iran ayaa wuxuu ka jawaabay maanta hadal dhawaan uu soo sheegay ninka la yiraahdo Trump oo ahaa waxaynu doonaynaa inaynu xukunka ka ridno nimanka hadda jooga ee islaamiyiinta ah ama kacaanka islaamiga inaynu ka tuurno xukunka si koox annaga aan fahmi karno ay halkaa u tagaan odagii ayatullaahi marka maanta caradii uu u qabay hadalkaas ayuu kala dul dhacay ninkii Trump ahaa wuxuu yiri qolada Mareykanka xukunta waa faasidiin faasid waa kuwa xun wuxuuna sheegay inaanay marnaba awood u lahaan karin inay ridaan kacaanka islaamiga ma yaqaanaan oo yiri kuwan Iran ma yaqaanaan dadka Iiraaniyiinta ma baranin wali waa maalinkaana isbaran lahayn soo aaday kacaanka kaalay rido yiri waxa ay ku dhacwaa la yaaba marnaba kama wada hadlayno yiri waxay sheegeen oo yiri sawaariiqdiina iyo gantaaladiina ayaa meesha ka saaraysan war cadawgeena ma lugaha qabsanaynaa yiri haddii hubkii aan isku difaacayna aan baabi'ino maxaan nahay marka waxaan nahay miyaa jirta war wuxuu shay u hadlayaan yiri odagii maanta dhaguhu ka garaacay taasa marka waxay iyaduna daliil kale u tahay wada hadalladaasu inaysan wax macnaa lahayn oo arintii wali ay taagan tahay oo la isu hanjabayo haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay ayatullaahiga laga qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay odagii Khamenei ahaa wuu hadlay wuxuuna la hadlay Trump wuxuu sheegay inaanu jirin axad awoodi kara inuu ka takhaluso jamhuuriyadda islaamiga ee Iran haddaba wadaadka dhinaca diinta ee u sareeya Iran Ali Khamenei ayaa ka jawaabay hanjabaado kal hore ka yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana uu sheegay ayatullaahi Khamenei in axad aanu awoodi karin inuu ka takhaluso jamhuuriyadda islaamiga ee Iran shacabka Iran waxa uu sheegay inaysan waxba ka qaadi karin koox uu ku tilmaamay faasidiin kuwaasoo xukuma hadda sida uu yiri Mareykanka wadaadka ayatullaahiga Ali Khamenei maanta ayuu hadlay talaado ahayd waxaana uu ka hadlay isu soo bax ka dhacay ama kulan ka dhacay magaalada Tehran Mareykanka way og yihiin oo yiri waxa aanan nahay annaga waaye marka sheekada marka iyaduna waa u jeedaan marka macnaheedu wuxuu yahay meeshan wada hadal iyo waxa kan iyo wax laga sugaa meesha bijiraan meeshan ayatullaahiga ninkii uu dhagaha ka garaacay Trump ahaa wuxuu yiri kaana islaamiya rida mabana taqaanidur annaga Iran waa baranaysa waatii maalin ka horna taliyaha abaanduulaha ciidamada uu lahaa haymanada adduunka ku haysato waa meeshii halkan ku baabi'i lahayd maraakiibtaada ku soo guro yiri halkan waa meeshii ay ku degi lahaayeen kulligood awoodaada ay ku jabi lahayd cid dambe oo adduunyada isku taagi doonto ma jirteen marka meeshan xaalka saasa la isugu hanjabayaa hanjabaadaha hawada la isu marinaya wararka kale Iran ayaa maanta ku jirnaa maanta barnaamijkeena oo dhan waan idin sheegay waxaanu ku soo qaadanaynaa xaaladda Iran oo aad u kacsan waxyaabaha kale ee Al Jazeera ay qorayso waxa kamid ah saacado marinka Hormuz waa xiran yahay Iran marinka Hormuz ciidan Mareykanka waa waardiyeynayna Soomaaliya Iran waxay tiri saacad hatta waqti 2 saac iyo 3 saac lama dhihin marinkan waa xiran waa meesha ugu badan ee shidaalka adduunka uu maro waay oo macnaha meelaha ugu maro oo ka mid tahay khaliijka oo dhan wadadiisa waay gacan biyoodka waxa la yiraahdaa Hormuz la yiraahdaa meesha Mareykan waa waardiyeyna u lahaa waay
marka maxaa la yidhi saacaday noo xiran taaliin meeshaan wallahi ka tahay ninkii soo mara nagtaa ka saarayna maxaa dhacay waaye tadriibaadka wax nooga dhimayna tababarkii shalay aan sameynaynay ayaa wax ka harsan yihiin marka meeshaasaa waa saacadaha xiraynaa dheh maraykan meeshuu taagay shalay waa ogeydeen markii dhoolatuska la sameynayay halkan aday kaga soo dhewo waa hortiisa lagu baashaalayay ma usan la hadli kara dee biyahooday ku jiraan meeshay ku ciyaarayaan iiraaniyiin doomahooda iyo aerocortoriskooda iyo waxooda iyagoo cid kale kuma xadgudbayaan hormusgay qayb ka leeyihiin maraykan laakiin isaga waa yimid bannaankaasu joogaa haddana waxay dhahdeen meesha waaba noo xiran tahay markabkii isku soo maro wax ku dhacaan meeshaan rasaas xayaa la isticmaalay dheen rasaas nool oo tii runta ahayd ayaa meeshan laysku ridayaa marka ciddii isku soo marto waa nasiibkeed haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey sheekadan iyana laga qoray haddaba wararkii ugu dambeeyey ee arrinta hormus waxaa leeyahay telefishinka aljazeera wuxuu leeyahay iiraan waxay xiraysaa meesha la yidhaahdo hormus saacado macnaha meeshaasi waxay xirtay saacado iyadoo samaynaysaa dhoolatus military ayay halkaa marka samaysay marka waxaa la yidhi telefishinka rasmiga ee iiraan ayaa maantoo talaadaha wuxuu sheegay in iiraan ay xiri doonto meesha la yidhaahdo hormus saacado kooban si markaa dhoolatuska military ee halkaa ka jira loo dhammeeyo taliyaha militariga iiraan ayaa sheegay in iiraan ay diyaar u tahay wax kasta oo soo baxa oo amara oo ka yimaada madaxda sare haddii la yidhaahdo xera meeshaas hormus markab dambe yuusan marin awood buuxda ayaan u leenahu yidhi taliyaha militariga inaynu xirno meesha wakaaladda wararka ee waddanka iiraan ee la yidhaahdo tasniim ayaa uu la hadlay taliyaha ciidanka badda ee ilaalada kacaanka iiraan ninka la yidhaahdo cali rida tangsiri waxaana uu sheegay xiridda meesha la yidhaahdo hormus ee gacan biyoodka ah inay markaa sugayaan keliya awaamirta madaxdooda oo ay markan awood u leeyihiin inay halkaa xiraan halkaa marka la xiro marka maxaa dhacaya haddii iiraan la weeraro meesha ka waayo horta wax maraayo male waxaa go-doomaya dowladaha carabta khaliijka oo dhan meel ay wax u maraan male baddu way soo xirmee meesha laga galo badda albaabkeedii khaliijka loo gudbaaya iiraana fadhida qab ay siinaysaa meeshaa gudaha ayaa ku jira marka waxaa ku jira imaaraat waxaa ku jira baxrayn waxaa ku jira qatar waxaa ku jira sacuudi waxaa ku jira maxayto ciraaq waxaa ku jirta kuwait waxaasoo dhan luuqaasay ku jiraan sacuudiga marka miduu ku fiican yahay halkan badda cas jiddana waa joogaa marka halkan haddee ka xiranta halkaasaa u furan nimankaa kale meel kale u furan male kulligood waa go-doomeen waxaa sidoo kale la yaab leh halkaa ku go-doomi doona ustuul baxri maraykan ah macnaha maraakiib raxan maraykana oo saldhig uu u yahay baxrayn halkaasay fadhiyaan kuwaanna ma u gudbi karaan kuwaan kalena ma usoo gudbi karaan sheeko waalana marka halkaa ka dhici doonta iiraan marka taliyayaashooda si caday u sheega waxay dhaheen diyaaraan ay dhehen toolatuska maalmahan la sameynaya qaabkii loo xiri lahaa wixii marka waxay yidhahdeen waa amar besaa sugaynaa madaxda sare ha la xero hadday tiraa qab waa xiraynaa yidhahdeen miinooyinkoodii waxooday dhigayaan waxyaabaha kale ee aadka looga hadlay waxaa ka mid a warbaahinta aada uga hadlayaan oo aljaziira laftirkeeda ka hadlayso in qobaradu ay leeyihiin dagaal hadduu qarxo maraakiibta maraykanka in badanoo ka mida waa ku daayeen iiraan waxay isticmaali doontaa gantaalo plastig ah oo madaxyadoodu ay dhowr mar qarxayaan kuwaasaa markabka diyaaradaha loogu talagalay markabka diyaaradihii marka muxuu samaynayaa wuu guurguurayaa marba meel u tegayaa marba meel salka la gelayaa haddana markuu cabaar jooga uu baxayaa si yoolka haysta iyo gantaalaha uu uga baxsado marka sheekadaasu halkaasay marka taagantahay qadar xayisiisa kadib weli sheekada way noo socotaa maanta iiraan arrinteeda warar badanaa ka yimid diyaarado cusub oo shaxnado wada ayaa waxaa la sheegayaa saacadihii lasoo dhaafay in iiraan ay ka degeen kuwaasoo ka yimid ruushka iyo shiinaha maxaa loo malaynayaa hub laakiin wax caddayn kara male laakiin shaxnado inay degeen ayaa hadda la sheegayaa oo hub wax kale meeshaa ma degaayo gantaalihii jineska iyo ruushka iyo ay ugu talagaleen maraakiibtan inay markii dagaal saddexaad dhaco ay kula dagaalaan ayaa halkan la keenay si loo tijaabiyo inay nagta ka saari karaan iyo in kale nimankan
haddaba xayeysiinta kadib ayaan idin hayaa wararkan xiisaa leh. asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena koobaad. maanta waa maalinimo talaado ah, qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu maraynaa. gabi ahaantii barnaamijka Iiraan haysata maanta wararka iska soo daba dhacay waa yaabaysaa. haddaba warkan waxaynu kusoo qaadanaynaa qaybtan. marka hore waxaynu ka hadlaynaa Al-Jazeera waxay leedahay waxaa la ogaaday xogo ku saabsan saacadihii lasoo dhaafay shixnado hub ah inay ka degeen Ruushka iyo Shiinaha ka yimid Iiraan inay ka degeen. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al-Jazeera, macluumaad ayaa sheegaya in Shiinuhu uu dowr ku leeyahay xoojinta awoodda gantaalaha Iiraan kadib markii warbixin soo baxday ay sheegtay Moscow inay dirtay shixnado military oo ay Tahraan u dirtay. dhanka kale waxaa la sheegayaa in Shiinuhu isaguna uu diray. haddaba shiraakada ama heshiiska iskaashi ee istiraatiijiyadeed ee u dhaxeeya labada dal, Ruushka iyo Iiraan iyo Shiinaha iyo Iiraan, ayaa waxaa la sheegay in uu gobolka ka dhigay meel xaaladiisu ay aad halis u tahay. ma ujeedaan waa la xoojiyay gantaalihii Iiraan wax kasta oo Mareykan lagula dagaali lahaa ayaa gacanta loo geliyay. haddaba Mareykanku markay ogaadeen sheekadu meesha joogto, awal waxay ahayd Abraham Lincoln kii diyaaradaha xambaarayay, kadib Gerald Moore kii labaad markabkii ugu weynaa adduunka oo diyaaradaha xambaaraa la dhahay. hadda waxay ka fakarayaan mid saddexaad in loo diro. u fiirsada marka xaalku ma yeesaalan. laba markab oo diyaaradaha xambaara miduu yahay midka adduunka ugu weyn ayaa markii hore la diray, haddana mid saddexaada laga fakarayaa. macnaheedu maxay tahay? awoodda Iiraan ma sahlana. xogaha ay hayaan Mareykanku meesha in wax badan la keenay ay ogyihiin. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekadan, haddaba waxaa la sheegayaa markabka xambaara diyaaradaha ayaa horey u joogay USS Abraham Lincoln ma leeyaado. kadib Washington waxay dirtay markabka kale ee weyn ee leeyaado USS Gerald Ford. haddana waxaa la sheegay warbixinadu inay leeyihiin in la qorsheynayo diridda xaamila thalitha ama markab kale oo saddexaad in la dirayo. marka xaalku meesha dagaal uu sii socdaa. Mareykanku waabis iyo hanjabaad iyo wax uga qaado Israa'iil, laakiin niman soo taagan ay noqdeen. iyadoo wada hadallada Jineef socdaan Ayatollah wuxuu leeyahay faasidiin waa kuwan waxa ridi kartid male. marka nimankanu inay nimankan wax u qarsoon yihiin meeshaasaa markay ka muuqataa leeyahay. haddaba waa arki doonaa wararkan waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay maanta oo talaada aan idiin soo gudbinay. asxaabay like gareeya oo share gareeya barnaamijka. warar cusub hadday soo kordhaanna waan idinla socodsiin doonaa. haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka ka iloobi YouTube-ka, Facebook-na follow garey.